والله وبالله وتالله كوا إذا شرنا بنام بحق قال عندها يا هيدا أمان كهور كينيا إن سندن إذن ودين لبعتن سنة كور وحكمده هجامياش لبعتن سنة كور كوا أنا يدنا كمده كوكان عي إن أنت قرقاتن دولت كوري مادان إياه قدنا جارله وجددوا أي هيد إن مدحتنا بكوجاران وجددوا أي هيد إن تتك حكومان شن أو ويل صوماليين يسكود لي إن مدح نقدان ما أنتي لبعتن سنة كذب وأنا أنقراص أنا مالين تاسي قرق إيدي بن أنقراص إن ما أنتي هدنا وجه كلا أنتوا سووا بدشان الشعب كقلدان إن يسكود ديان لا أقبل ما الشعب وكأقبلنا دليرة كأقبلنا شلي هدي قلدان جيل الكلا وشن أو ويل صوماليين إن حكم تجان وتجان ما أنت شلي ماهن وحال ربعنا كفول جناتان وحال ربعنا أوقاتان دتك إن كدريا أنا جاه هذا أمان كان مسؤولية النصارى وعيتا شعبك قفك الصوت نباتين سوق من شعبك كوركينه أيها وحال لنا هاي شعبك هيسكو آديننا بلشة هيسكو آديننا مالها أكون من إنسان إسكدايا أركتينا يا أركت السياسة لأنكم هيستو degdeg war hadda soo dhacay daawadayaal waxa uu sheegayaa in baabuur uu leeyahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ciidanka dawladdu ay ku dhufteen qoriga nooca loo yaqaan sabanka isla markaasna la gubay waxaana loo sheegay oo saraakiil halkaasi joogtay ay noo sheegeen in laba kamid ah staafka ama ciidanka la socda ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Khayre ee goobta ku dhaawacmeen ciidamadu isla goobtaas oo ah aaga Siinaay waxa ay ka xirteen difaac waxaana hadda lagu kala jiraa aag difaac iyadoo mucaaradkii halka ay joogaan dawladda ciidamo ay dirtayna ay geysteen waxyeelada ah inay madfac ku dhufto baabuur uu leeyahay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ujeedaduna waxa ay tahay sababta ay ciidamadu isku hor fadhiyaan ayaa keentay kadib markii ciidanka dawladdu ay saban ku dhufteen gaari uu leeyahay ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Khayre waa Cali Aadan Muumin iyo xaaladda galabta magaalada Muqdisho oo ah mid dagaal kaaga waramaya